in ka badan 5,000 oo qoys ayaa la rumaysan yahay inay ku barakaceen fatahaada uu webiga Shabeelle ka sameeyay xaafado ka tirsan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kuwaas oo hadda xaalado nolol xumo ay ku haystaan deegaanka Xaaladda oo 3 kiiloomitir dhinaca bari uga beegan Baladweyne. qoysaskan waxay ku nool yihiin aqallo dusha laga saaray marooyin iyo baakado si ay cadceeda ama qorraxda uga dugaashadaan walow haddana roobab dhowr markada ay magaalada ay saameyntii ugu adkeyd ku yeesheen qoysaskan. ma haystaan qoysaskan badankood sida iga muuqatay bacaha ay roobka kaga dugaashadaan iskabada ay cunno iyo wax kale oo ay noloshooda ku maareeyaan. aniga nolol ma hayno waxayna biyo leefay ma hayno waa cod iyo abaar waxaan maanta dhex taaganahay iyo biyo walaalayaal ninkayda noqon dadka biyo kaliya kama soo bixin walaalayaal midka wixii la marin lahaa lalaaya yaalkayni aan dhibaato kama u haysanaa xalay guri anigaygo xalaasha galaas ana boolaho ali qasaan ku seexday annakaan waa ku jooga Mustaf Ibrahim cilmi ali jiraaha xaafada Xaaladda jooga ku timbaan ka soo baxay sida anoo imid guriga wax liimsi laba habeen hal maalin roob gudaay niman waaweyn harbaca la keenay koob sooyina la keen oo waxba aan ugu talayno anaga xalkaan isku layno naaga xataa ilmihii laga soo wada ridi oo lagu tuntay dhibaatada Xaaladda ka taagan maanta ebadka saacadda Xaaladda horta kama dhicin maxaa way anaga walaalaha dalkii dibadda ku nool maxaan ku codsanaynaa inay il naxariis la inagu soo da'aan ku codsanaynaa. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax waxa uu sheegay in maamul ahaan wixii ay qaban kareen aysan bulshadooda ka hagran balse waxa uu tilmaamay inaanay jirin haba yaraatee wax gurmad bini'aadinimo oo dadkan la soo gaarsiiyay xaaladooduna ay aad u adag tahay. biyo baxadu dhibaato weyn ay hadda dadkan u geysatay maanta joogay 8,000 iyo in ka badan ayaa magaaladan gudaheeda ka barakacday. tuulooyinka laga bilaabo xadka Itoobiya ilaa iyo meesha webigan uu ku socdo Soomaaliya labada dhinac ayaa laga degan yahay dadka beeraleyda ay beeraha qotaan in Allah inta tuulooyinka webiga dhinaciisa fadhisayna way qaxeen ilaa 300 tuulo ayaa laga qaxa laga barakacday. marka wax maartay maanta kaalmaha laga geystay oo la sheegi karo oo la dhihi karo waxa soo kaalmaha la geystay oo la taaban karaan ma jiraan sababtoo maamulka gobolka hadaan anagu ma awoodin inaan gurmad geysano xaaladana dhaqaale iyo markii la fiiriyo dawladdeena dhaxanan awoodin hay-adihii caalamiga ahayna wixii laga rabay kama soo bixin bal waxaad u malaysaa maanta inaysan gargaar Soomaaliya u haynin aad u malaysaa meeshii wax ay geysteen ilaa hadda oo la taaban karo oo dhihi karno hay-ad hebla ayaa waxaas geysatay ma jiraan dhibaatada dadka haysta xaalka turfaba daay dadku meelka ugu hoydaan mala anaga maamul ahaan biyihii iyo maartii sheegay waxaan la dadaalaynay iyo caafimaadka inuu san cudur ka dilaacin meeshaas ilaa hadda alxamdulillah cudur kama dilaacin waa dadaal weyn aan wadnaa aan sababtoo ugu macalinayna qayb ka mid ah daawaha inaga kaalmaysa jirta in kasto daawada maamulka gobolka in badan uu ku dadaalay isbitaalka weyn ee gobolka uu leeyahay guud magaalada Baladweyne ku yaalo iyo dawo anaga aan sameeynay iyo hay'adda DRC ayadana waa kaga mahad celinaynaa yaraha waxay sameeyeen xagga biyaha aan dhaaminayno oo dadku dhaaminayno booyada halkaas uu geeyeen ay naga caawiyeen. dhinaca kale qoysaskan ku soo barakacay deegaanka Xaaladda isma dhigan mar haddii aysan jirin wax caawimaada waxayna ka samaysteen goobta ay ku soo barakaceen ganacsiyo yaryar oo ay noloshooda ku maareeyaan. qaar ka mid ah oo aan la kulmay ayaa iiga sheekeeyay qaabka ganacsiyadan yaryar ay noloshooda ugu maareeyaan iyo faa'iidooyinka ay ka helaan. daawud asmaada liiraa qaraasan ganacsada wax kale oo dimash ku haynan male haddana caloosha waliga tacbaan qofkan ku jiro marka qaraha inta ku bilowday mise magaalada ka joogto gadi jirtay magaala waa ku gadi jiray haddana qaxootigana ma ku dawaa nolol maalmeedka ma laga helaa nolol maalmeedka waa min maalin wala waya laakiin waxa badan aan helno waxa biyaa jira xaafadu ku tiimbo waxa ka garacsi jira macnaha maqaayasha iyo fura jirtay hadda waxa iga soo bixi guriyay dhibaato iyo macnaha biyo iga soo bixi halkaan jooga halkaan shaan ku karsada shaayina macnaha wax fiican iyo biilka xataa ciyaalka kama helo mar walba iska baara habeenka waa iska xariista oo iska xista ciyaalka dib iska celiya waxna fiican halkaan ku haasta malaha. sanadihii ugu dambeeyay waxa la rumaysan yahay in isbedel uu ka dhacay xilliyadii uu webiga soo fatihi jiray oo aad u kala fogaa hase ahaatee waqtiyadii ugu dambeeyay siyaabo isxigxiga uu webigu u soo fatahay taas oo u baahan mashruuc dawladeed oo wax looga qabto sida uu qabo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax. biyo baxadu qaabkii u gashana ama fatahaadana qaabkii u sameysmaan waa laba shay qaab sanadla ah iyo qaab 4 sanaba markii la joogo ama 8 sanaba markii la joogo ay baxaan qaabka sanadkiiba mar ah xaafadaha magaalada xaafado kamid ay galaan sida xaafada Xaawataaka iyo Kooshina u dhib badan ay aad u galaan iyo xaafada Howlwadaag dhinac kamid ah
qaabkaas waa qaabka sanad la ah markasta sanad kasta ama dayrta markay tahay biyaha badan da'an ama guga markay tahay labadaas xilli oo sanadka ka tirsan ayay aad u butaacaan qaabka kale waxa waa 8 sano maray ahaa jirtay marka la fiiriyo isbedel ayaa ku dhacay awal 8 sano mar ayaa ahaa jirtay 82kii baxday 62kii baxday waxay baxday 29kii laakiin waxa jirta way isbedeshay yaraha waxa dhacday oo arkaysa marka horta way kala fogaayeen biyahaas aad ku faraha badan biyahaasi waxay hadda isku bedeleen 4 sano mar way dhacaan marmarna 8 sano mar dhacaan biyahaas waxa waa meel lama dhaafaan Baladweyne waxa arkaysa xaafadaha dhan oo magaalada Baladweyne guri 2 dabaq ama 3 dabaq oo kale oo biyuhu ka sare marayaan ay dul marayaan ay arkaysa aafada marka biyaha magaalada way qabtaan waxayna u baahan tahay mashruuc weyn oo maartay sheeg dawladdu ay sameysay u baahan tahay cid kasta way dareemi kartaa baahiyaha ay dadkan qabaan xilligan iyo gurmadka ay u baahan yihiin haddana weli ma muuqato isxilqaan iyo in ummadan dhibaataysan la caawiyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo lagu yaqiinay inay iscaawiyaan iyaga dhexdooda waxaana moodaa in kaliya la dhowrayo kaalinta ay hay'adaha gargaarka qaataan haddii ay qaadan waayaanna aan bal la isweydiinayn sida dadkan loo caawin karo ana mahmahdii Soomaaliyeed ee ahayd cidna uma maqna ceelna uma qodna weliba iyaga isuma maqna oo waa dayacan yihiin Mustaf Maxamed Warcadeeye telefishinka qaranka Soomaaliyeed Magalada Baladweyne